بسم الله الرحمن الرحيم. magacayga waa cumar maxamed. soo dhawaawa. waxaan rabaa inaan ra'yigayga idinla wadaago si aan u soo gudbiyo ra'yigayga waxa waaye sharafta iyo karaamada Soomaaliyeed inay mid noqdaan. walaalle waxaan idiin wadaa maadaama aan taageero dhalinyarta wiiftadii wax ku barteen iyo aad u taageero gaar ahaan aad aan ugu jaleeca dhalinyarta wiiftada wax ku barteen iyo kuwa kale oo qurbaha oo iyukana aad ma arkinoo haddaba hogaamiyaan siyaasadda Soomaaliya aad u hogaaminayaan oo iyukana dhalinyaro aan caadi ahayn musuqmaasuqa aad aga soo horjeedo ay yihiin. dhalinyaradaas lamadan dhalinyarana dawli waaye kuwana Soomaali waaye laakiin labadoodaba waa laba qadiyo oo waxtar u leh bulshada Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin. walaalle lamadaas dhalinyaro waxay ku loolamayaan kuwana inay musuqmaasuqa dilaan, kuwana inay takhaatiir noqdaan, gaar ahaan kuwa wiiftada wax ku barteen iyo juhdiga badan waxay leeyihiin waa daaweynayna cudurka loo waayay takhaatiir oo tayo leh ayaa usoo bixi doonto 2004 sano oo hadda jirto hadday dhammaato 4 ku xigto amba 4 gudaheeda ay dhalinyartaas ay daawey doonaan cudurkaas Soomaali ku baahay oo daawada loo waayay. takhaatiirta kale oo ma arkino oo dhalinyarada aqoon-yahanada oo dhalinyarta ama qurbaha oo ka timid oo hadda hogaaminayso ma arkino dowladda Soomaaliya iyo sharafta iyo hibadda iyo karaamada Soomaaliyeed dhalinyarta hogaaminaysana waa takhaatiir inay daaweyso ugu tala gashay musuqmaasuqa Soomaaliya hareeyay. kuwaas lamadan dhalinyaro waa inaba caadi maaha. takhaatiirtan waxay bilaabeen inay daaweeyaan musuqmaasuqa uma furin isbitaallo waaweyn dhalinyarta hadda waqti badan ay haastaan waxaa ka 2 bilood lay jiraan dhalinyartaas kuwaalitoodkooda inaba caadi maaha. dhakhtarka way fureen baroobana way keeneen. baroobadaas aan idiin soo bandhigo nin aanan feelkiisa iyo waxbarashadiisa iyo aqoontiisa aanan keenin xafiis amba oo Soomaali ka mid ah oo haybadda iyo sharafta iyo karaamada Soomaaliyeed lagu waardiyeynayo nimaanan feelkiisa keenin inuunan qaban karin xafiis Soomaali ka mid ah. wax badan ay takhaatiir caadi inaba ahayn waaye laakiin lamadan dhakhtarkii aqoon-yahanadii oo iyo takhaatiirtii wax ku soo baratay wiiftadii iyo takhaatiirtii qurbada wax ku soo baratay oo ma arkino cudurka oo musuqmaasuqa la yiraahdo daaweyhayaan lamadaas dhalinyaraba waxaan u dirayaa fariin. dhalinyaro waa wanaagsan tihiin, kubaddana waa ku loolami doonaa, barxadda isla tegi doonaa, dadkana waa daawey doonaa. laakiin dhalinyarada oo wiiftada wax ku baratay barow adiga takhtarya kiniini badada ha qoridho xariif keen fikrad macaan oo shacabka Soomaaliyeed ay ku riyaaqaan maadaama aanay aad u taageero dadka xabaddii iyo wiiftadii iyo dhibaatadii wax ku barteen. taas intaasaa aga baxaya. waxaan rabaa booliiska iyo sharci dejinta inaan lama fariin u diro ayaan rabaa iyukane. qolada sharci dejinta iyo baarlamaanka golaha sare golada hoose iyo golaha hoose waxaan leeyahay dhalinyartii ma arkino Soomaaliya in ay qadiyadeeda ay caadi ahaynin ka dhabeeyeen aqoon-yahanadii ka dhabeysay kuwaasna fariintaas ila wadaagay. fariinta oo kale oo tiimamka Soomaali ka mid ah ay hayaan oo gaar ahaan dowladda aad uma dhaliilo laakiin waxaan aad u dhaliilaa booliiska Soomaaliyeed meel walba uu ku nool yahay. walaala sharaftii iyo karaamadii iyo haybaddii Soomaaliya barow haddaad u heshay nasiib oo aad heshay oo ku guulaysatay walaalle dadkaada
dhaxtaal u noqdo ninkii qashku siiyane saameyn badan ha ku yeelanin si fiican aad wax oo ma arkinoo si fiican u control kan uu sheegayna si fiican u control si aad aga dhabayso hamiyaadka aad leedahay ileen waddan aanan shacabkiisa la shaqaynin haybad iyo karaamo ma yeesho ilaa uu shacabkaada kula shaqeeyo mooyaane booliska Soomaaliyeed saas ayaan u dirayaa taas ila wadaag booliska Soomaaliyeed haddaad tihiin meel walba aad joogtaan waxaan rabaa haddana fikradda kale oo u diraayo dadka Soomaaliyeed meel kastoo ku leeyahay walaale nimaanan dalkiisa daacad u ahaynin sharaf ma helayo sababta oo ah waxa waaye dadka aad iska daba raacaysid iyo waxa adiga tahay haddii ay dadka lagu nacamleeyo iyo inaad qof u nacamleyso way kala macaan tahay sida ay dadka caqliga u saaxiibka ay fahmi karaan walaale ha kaa go'naato weliga sharafta iyo karaamada Soomaaliyeed sida ay ku hana qaadi lahayd in ummadda iyo caalamka aan wax ula qaybsanahaynay waxaan rabaa inaan kala u diro ma arkino in ay ila wadaagaan aqoon-yahanadii dowladihii hore ka mid ahaayeen masuqmaasuqana uu joogay boqolkiiba 100 oo boqolkiiba 1 ama boqolkiiba 2 ama boqolkiiba 5 uu naqahay intii jaranjaradaas la soo mooday hadda waxa waaye lama waa masuqmaasuqi wuxuu joogaa dhaxtaal boqolkiiba 50 waxaa nadiifka boqolkiiba 50 waa masuqmaasuq marka waxaa la rabaa dawlad waxaa timid hadda 8 February 2017 waxaan dooranay hogaamiye daacad ah caadi inaba aan ahaynin shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan libinta siiyeen marka maadaama ay libinta siiyeen shacabka Soomaaliyeed ayna qirteen in la shaqeeyaan booliska Soomaaliyeed oo la shaqeeya xafiisyada Soomaaliya oo dhalinyarta wiiftada wax ku baratay oo ma arkinoo soo dirsato gudaha Soomaaliyana joogaan caadina aan ahaynin walaal haddaad muwaadin tahay hadduu dhalinyaradaas aad la kulanto walaal Jaanis jaaniskaas oo ah nin kasta oo muwaadine in uu jaanis helaa oo wax ku qabtaa barxadana waa noo dambeeyay waa ku loolamaynaa walaalayaal intaasaan rabaa inaan kaftan aga baxo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada walaalayaal